waa haween sanaduna waa 1962. Tony wuxuu ka shaqeeyaa maqaayadaha ugu waaweyn New York, wuxuuna shaqadiisa tahay waiter iyo security. Maqaayadda waxaa imaanaya gaangiistarada ugu caansan New York, ahna gaangiistarada ugu waaweyn America. Maqaayadda markuu imaado wuxuu sheegayaa koofidiisa hadday ka dhunto inuu maqaayadda dhan xirayo, laakiin Tony ayaa maqlayo koofidina qaadanayo. gaangiistarkii weynaa markuu bixi rabay xaafadiisa u socday ayuu wuxuu leeyahay koofideedii meeyay, laakiinse koofidiisa waa mid maqan. gaangiistarkii weynaa wuxuu sheegayaa in maqaayadda mar dambe ay shaqaynayn oo xirayo, laakiin wuu ka dhaweeyay maqaayadiina wuu xiray. Tony iyo asxaabtiisa sidaas ayay waxay ku noqdeen shaqo la'aan. Tony wuxuu u soo celinayaa koofidiisa gaangiistarkii weynaa, laakiin wuu ka diidayaa. Sidaas Tony wuxuu weli ku yahay shaqo la'aan. Subaxdii ku xigtay Tony wuxuu imaanayaa xaafadiisa, waana mid aad u murugsan. wuxuuna la joogaa xaaskiisa iyo labadiisa caruur. Tony wuxuu arkayaa laba nin oo madow ah oo cabayo cabitaan guriga. Labada nin ayaa guriga ka qabanaya shaqo, laakiinse labadii nin markay cabeen cabitaankii, Tony wuxuu tuurayaa galaasyadii ku cabeen cabitaanka. Wuxuu sidaas u sameynayaa Tony naceebka oo u qabo dadka madow. 1962 America waxaa ka socotay cunsurnimada tii ugu xumeyd. Tony keligii ma ahan ee waxaa qaba cunsurnimadiisa camal dad badan oo cadaan ah. Tony wuxuu soo noqonayaa maqaayadii, laakiin ma ahan mid furan maqaayadii, sababtoo ah waxay u xiran tahay gaangiistarkii weynaa. Tony wuxuu ku soo noqonayaa xaafadiisa, weli waa mid shaqo la'aan ah. Tony asigoo shaqo la'aan hayso ayuu wuxuu wacayaa saaxiibkiisa. Markuu waco saaxiibkiisa waxaa loo sheegi doonaa nin biyaan caan ku ah oo la dhaho Doug inuu shaqo rabo, shaqadaasna ay tahay inuu gaariga u kaxeeyo ninkaas. Tony oo shaqo la'aan hayso ayaa wuxuu aqbalayo shaqadaas, wuxuuna raadinayaa ninkaas lagu magacaabo Dr. Doug oo biyaanada caanka ku ah. Subaxii ku xigay Tony wuxuu la kulmayaa Dr. Doug. Tony markuu la kulmo Dr. Doug wuxuu la yaabayaa dharkuu xiran yahay ninkan madow inuu u shaqey doono Tony, laakiin waxaa la yaab leh inuu Tony neceb yahay dadka madow. Dr. Doug wuxuu ku libisan yahay dhar ka samaysan xariir iyo dahab, laakiin waxaa la soo bandhigayaa Tony dhiilkaasoo ah inuu qaato isbuucii $100. Tony wuxuu ku leeyahay aniga ma qaadan doono $100 anigoo u shaqaynayo nin madow ah, laakiin Dr. Doug ayaa wuxuu leeyahay waxaan ku siinayaa $125. sidee u aragtaa? Wuxuuna aqbalayaa Tony $125. waa nin shaqo la'aan hayse. Maalintii ku xigtay Tony waxaa lagu wareejinayaa furaha, waxaana ku wareejinayo shaqaalaha Dr. Doug, wuxuuna siinayaa book lagu magacaabo Green Book ay ku qoran tahay taariikhda dadka madow iyo Dr. Doug taariikhdiisa. Tony wuxuu bilaabayaa shaqadiisa, wuxuuna bilaabayaa inuu gaariga ku kaxeeyo Dr. Doug, laakiin Tony ma mid ixtiraamaya Dr. Doug. gaarigii ayuu wuxuu ku cabayaa sigaar, wuxuuna ku cunayaa cunno, sababtoo ah Tony wuxuu u maleeyaa dadka madow inay ka hooseeyaan asiga. Tony iyo Dr. Doug waxay isku soo raaci doonaan xaflad ay qabsanayeen dadka cadiinka ah. Xafladaas waxaa laga tumaya piano. Pianadii waxaa lagu casuumayaa Dr. Doug. Tony wuxuu la yaabi doonaa Dr. Doug sidoo uu tumayo pianada, waana markii ugu horeysay uu aragiyo qof madow oo tumaysa piano. Ebel wuxuu weysi jiray dadka madow inay aqoonin pianada si loo tumo. Maalintii ku xigtay Tony kaligiis ayaa wuxuu imaan doono meesha xafladda lagu qabay xalay. Markuu imaado wuxuu galayaa gudaha markuu u galo ayuu wuxuu arkayaa pianadii oo tumayay Dr. Doug, laakiin wuxuu aaminsan yahay pianada inay tahay mid wasaq ah. Shaqaalihii meesha jooga ayuu yeerayaa, wuxuuna ku leeyahay pianadan waxaan rabaa inaad iga bedeshid, laakiin wuxuu leeyahay shaqaalihii maxaa ku dhacay pianada. wuxuuna sheegayaa inuu xalay tumayo nin madow eena tahay pianada mid wasaq ah, laakiin ninkii shaqaalihii ahay ayaa wuxuu dhahayo ma ahan wasaq, laakiin Tony wuu xanaaqayaa, wuxuuna ka jarayaa dharbaaxo. Maalintii ku xigtay Tony wuxuu bilaabayaa sidii caadadaheed ku kaxeynta gaariga Dr. Doug, laakiin Tony maaha mid aaminaya ilaa hadda inuu pianada tumi yaqaano. Ninkan Tony oo yasayo ayaa wuxuu meesha ugu tuurayo laf, laakiin Dr. Doug wuu iska saarayaa, banaanka ayuu u saarayaa. waxaa lagu casuumayaa xaflad piano ah mar kale ay qabsanayaan dadka cadiinka ah. Dr. Doug wuxuu tumayaa pianadii, dadkoo dhanna way la dhacayaan, laakiin markuu pianadii tumo waxaa qabanayso suuli, wuxuuna soo aasanayaa suulida, laakiin waxaa loo sheegayaa suulida inuu asiga isticmaali karin ay tahay tiisa mid ku taalo banaanka. Dr. Doug waxaa la tusayaa suulidiisa, wuuna la yaabayaa. isla markii Dr. Doug wuu xanaaqayaa, wuuna kasoo tegayaa xafladii. Tony ayaa arkayo waxa meesha ka dhacayo, kabacdi wuxuu u imaanayaa managerka hoteelka, laakiin managerka hoteelka ma ahan mid asiga ka galay waxaas. Tony waa markii ugu horeysay oo u naxo qof madow ah. Tony iyo Dr. Doug waxay wada fadhiyaan meel banaan ah. Tony iyo Dr. Doug waxay akhrisanayaan buugaag. Dr. Doug waa nin romantic ah, yaqaano
erayada lagu shukaansado hablaha iyo kuwa soo jiito. Laakiin Tony ayaa wuxuu rabo inuu u qoro erayo xaaskiisa oo ka maqnaay muddo. Dr. Dag ayuu weydiinayaa erayadaas ayaa waxaa ah kuwo cajiib ah, waana ka heli doontaa Tony xaaskiisa. Sida caadadaheeda, Tony iyo Dr. Dag waxay imaanayaan xaflad, laakiin xafladda waxaa jooga Tony asxaabtiisa kala shaqay jirtay maqaayadda. Waxayna leeyihiin waanta waxaa u shaqaysaa nin madow ah. Tony oo aqoon la wuxuu ugu jawaabo ayaa meesha iskaga tegayo, laakiin Dr. Dag ayaa dareemayo. Markii xafladii laga soo baxo, Dr. Dag iyo Tony waxaa dhexmarayo hadal. Wuxuuna u sheegayaa in asxaabtiisa ku dhaheen hadallo xun, hadduu u baahan yahayna mushaharka in loo kordhinayo. Tony ayaa wuxuu ku leeyahay ma baahnay ani mushaharka in loo kordhiyo, laakiin waa iska caadi, mar walba ayay ifoodayaan kuwaas, waana dabeecadooda. Markii laga soo noqdo baarka, Tony iyo Dr. Dag waxay wada qaadan doonaan waqti. Tony wuxuu u sheegi doonaa Dr. Dag inuu yahay nin wanaagsan oo qalbi fiican oona ku fiican piyaanada, laakiin wuxuu weydiinayaa heesaha oo jecel yahay. Wuxuuna u sheegayaa heesaha uu jecel yahay piyaanada Tony. Intaas ka bacdi, Tony iyo Dr. Dag way soo baxayaan. Markay soo baxaan, waxaa qabanayo booliis. Booliiska markuu qabto ayuu booliiskii intuu baarayay Tony inta xanaaqiyo ayuu booliiskii garaacaya. Isla meeshii ayaa lagu soo xirayaa labadooda. Laakiin Dr. Dag wuxuu taagan yahay maxaa lagu soo xiray aniga ma geysan qalade. Laakiin kuwii joogay saldhigga ayaa waxay aaminsan yihiin ninka madow inuu xaquuq lahaynin. Laakiin Dr. Dag isla markii wuxuu wacanayaa looyarkiisa. Isla markii oo wacdo looyarkiisa, qoladii meesha joogto oo dhan way isku dhaxyaacayaan, waxayna ka cabsoonayaan looyarkiisa. Dr. Dag iyo Tony waa la sii day doonaa, waxaana laga sii day doonaa xabsiga si farii ah. Tony iyo Dr. Dag markay soo baxaan oo lasoo fasaxo, waxay isqaban doonaan Dr. Dag. Dr. Dag wuxuu dhihi doonaa Tony waa gacan fudud tahay, waxaana tahay qof xun, waxaana necab tahay dadka madmadow. Laakiin waxay meesha ku dhaafsan doonaan hadallo qalafsan. Dr. Dag wuxuu ka degi doonaa gaarigii. Markuu ka degto gaarigii, waxaa da'ayo roob, laakiin Tony wuu ka daba degi doonaa, wuxuuna dhihi doonaa iga raali noqo. Laakiin Dr. Dag wixii qalbigiisa ku jiro dhan ayuu furayaa. Wuxuuna u sheegayaa inay dadka cadcad ay yihiin dad cunsuriyaal ah, asigana la cunsurimeeyo mar walbo. Dr. Dag indhihiis waxaa kusoo istaagaya ilin. Wuxuuna u sheegayaa xaqiiqda ama erayada dhabta ku jiro qalbigiisa. Tony wuxuu noqon doonaa hadalladan mid wax ku qaato. Dr. Dag wuxuu u sheegi doonaa inuu yahay keligiis oonan qabin waarid iyo walaal, piyaanadana la yahay walaal, oona degan yahay guri keligiis. Laakiin ugu dambeyntii wuu raaligelinayaa, waxayna isla soo fuulayaan gaarigii. Tony erayada ku dhahay Dr. Dag waxay dhaawaceen qalbigiisa, waxayna degeen maskaxdiisa, woona ka fikirayaa welito. Sida caadadaheeda, Tony iyo Dr. Dag waxay imaan doonaan xaflad ka dhacayso Brigham City. Markay xafladii imaadaan, Tony jaakadiisa suudka waxaa la saari doonaa meel kushiin ah, waxaana loo sheegi doonaa dadka madow jaakadahooda in aan la dhigin, dadka cad jaakadaha meeshay dhigtaan. Laakiin Tony ayaa inta ku xumaado ayuu u soo qaadi doonaa jaakadda. Dr. Dag mausan hayn asiga xafladda mid lagu casuumo, sababtoo ah waxaa jooga meesha nin caddiin ah oo tumayo piyaanada. Xafladdana waxaa qabsanayay dad caddiin ah, sababtoo ah asigu wuxuu soo raacay Tony. Dr. Dag markuu isdhihi maago gudaha u soo gal xafladda, waa laga celinaya. Waxaa celinaya waiterkii joogay meesha, wuxuuna u sheegayaa xafladda in laga ogoleen qof madow oo iskaga noqdo banaanka. Isla markii waxaa soo gaaraya Tony iyo milkilihii maqaayadda. Markay soo gaaraan halkaa, isla markii ninkii maqaayadda lahaa wuxuu raaligelinayaa Dr. Dag. Markuu raaligeliyo Dr. Dag, laakiin waa mid xanaaqsan asiga. Tony ayaa wuxuu ka codsanayo ninka maqaayadda lahaa inay isla wada hadlaan hal. Markay Tony iyo ninka maqaayadda ay isla wada hadlaayeen, ayuu wuxuu u sheegayaa ninkii maqaayadda lahaa inuu xafladdan iskaga tago Dr. Dag, sababtoo ah xafladdan ma ahan xaflad dad madow. Isla markii wuxuu soo bixinayaa lacag yar, wuxuuna u sheegayaa ninkan inuu yahay nin madow daanyeer ah oo ku cuno moos lacagtaan. Isla markii waxaa xanaaqaya Tony oo kala tuurayo. Waxaa arkaya Dr. Dag, wuxuuna leeyahay iska dhaaf, waxaas waa caadiye. Tony iyo Dr. Dag waxay iskaga tegayaan xafladda, laakiin dhanka kale waxay soo aasanayaan maqaayad kale oo leeyihiin dadka madow labadoodaba. Xafladdii markay imaadaan, Tony iyo Dr. Dag waxay cunayaan cunno. Gabartii joogtay waiterkeeda ayuu wuxuu u sheegayaa Tony inuu Dr. Dag yahay nin ku fiican piyaanada. Gabartii ayaa waxay u tilmaamayso piyaano. Markay piyaanada u tilmaamto, Dr. Dag wuxuu aasanayaa isla markii piyaanada. Markuu aasay Dr. Dag piyaanadii, wuxuu tumayaa Tony hees oo jeclaay oo u sheegi jiray.
Tony wuxuu ka heli doonaa maqaayadan dadka madow. Sidoo kale Dr. Dag waxaa ka heli doono dadka oo maqaayadii joogay. Waqtiga wuxuu ku beegan yahay Merry Christmas. Tony iyo waxay kasoo tagi doonaan xafladda. Markay kasoo tagaan xafladda, wuxuu Tony cabi doonaa qamri aad u fara badan. Dr. Dag ayuu wuxuu dhihi doonaa gaariga adiga kaxay. Waxaa kacinaya gaariga Dr. Dag. Dr. Dag markuu kaxeeyo gaarigii, Tony wuxuu keeni doonaa xaafadiisa. Asigoo la dhacayo wuxuu ka qaban doonaa garabka. Markuu ka qabto garabka ayuu wuxuu sheegayaa inuu soo galo guriga oo la caweeyo maanta. Laakiin Dr. Dag ayaa wuxuu jawaabayo inay familkiisa yihiin dad aad u neceb dadka madmadow, sidaas darteed inuu la joogi karin oo la caweey karin cabada. Meeshiina waxaa iskaga tegayo Dr. Dag. Wuxuu imaanaya Dr. Dag xaafadiisa. Xaafadan oo ku nool yahay kaligiisa, waxaana jooga Dr. Dag kaligiis. Dr. Dag wuxuu ku soo noqonayaa noloshiisa aheeday friends la'aanta, family la'aanta, asxaab la'aanta iyo walaal la'aanta. Markuu ku soo noqo noloshiisa, Dr. Dag wuxuu soo xasuusin doonaa nolosha Tony oo ah mid isfahmeen Tony iyo asiga. Tony wuxuu la cunteynayaa familkiisa, wuxuuna la cabaynayaa familkiisa. Isla markii waxa albaabka soo gargaraacayo qof waayeel ah, waxaana ka furayo Tony. Laakiin mar labaad ayaa la soo gargaraacayaa albaabkii. Markuu soo gargaraaco, wuxuu arki doonaa Dr. Dag oo albaabkii taagan. Tony wuu ku farxi doonaa, wuxuuna sii doonaa hab. Ugu dambeyntii wuxuu sheegayaa familkiisa inuu yimid saaxiibkiisa caawiyay. Dr. Dag waxaa la barayaa familka oo dhan. Tony wuxuu u sheegayaa Dr. Dag inuu yahay nin fiican asiga oo bedelay noloshiisa oo dhan. Dr. Dag waxaa ku soo boodayso Tony xaaskiisa, waxayna leedahay Tony noloshiisa waxaa ka bedeshay wax badan iyo dabeecadiisa. noloshiisana waxaa ka dhigtay mid heel sare ah. Mana naqaano waxaan kugu abaalgudno Dr. Dag. Tony familkiisana waxay ahaayeen dad neceb dadka madmadow, laakiin maanta ka bacdi way jeclaadeen dadka madow. Qisadan waa qiso dhab ah ka dhacday America 1962 waxayna ku dhacday labada nin halkan nii saaran. Inta filimkan camal ku kulmeyno waxaan iiga tegaynaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.